marka hore waxaan leeyahay dhammaan madaxda Soomaaliyeed oo halkan isugu timid waa ku mahadsantihiin qabanqaabada iyo hab maamuuska hawshan aadka loo soo abaabulay laakiin gaar ahaan waxaan leeyahay gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ugu horeyso marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan idin leeyahay waan idinkugu hambaleynayaa maalintan farxadda leh ee 8 Maarso waad mudantiin in la idin hambaliyeeyo sababtoo ah Soomaali baad u hambaliyeenayseen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobonimo doonka waan idin hambaliyeenaynaa sababtoo ah ma noolaan karno idinka la'aantiin laga soo bilaabo 1947 ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay raggu markay cabsadaan haweenka dhiiri gali jiray welina meeshii baa taagantiin waa ku mahadsantiin markii raggu dhaqaalahooda la bakhiilaana idinka bixiyo dahabkiina iibiya markay dagaalka ka baqaanna idinka gelin jiray markay colaadda ku nagaadaanna idinka ka qaban jiray markii la isu imaan waayena idinka dadka iyo dalka isu keeni jiray madaxdii iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinna horumarkooda ayaa wax ka halaysan yihiin sidaas daraaddeed anigoo matalaya ragga Soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambaliyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda Soomaaliyeed u garab taagnaydeen halkan waxaan ka qiraynaa maanta iyo mar walba in haweenka Soomaaliyeed ay mar hooyooyinkeen yihiin waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin barbaarisadii soo barbaarisay waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin dhaqaale abuurto ay dhaqaalaha noo abuuraan waxaan halkan ka qiraynaa inay iyagu yihiin kuwa colaadda damiya marka dabka colaaddu kaco waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa kaliya oo qaraabeeya laba qoys labadaas qoys oo 20 noqota 20 kaas oo 200 noqota labadaas oo 200 noqota labadaas kun oo qaranka noqota waxaan aaminsanahay markaad halkan ka maqasheen gabdhihii halkan ka hadlayay inaysan hooyooyin kale oo kaliya ahayn ay hogaamiyeyaal yihiin ayna tahay in la siiyo doorkooda waxaan aaminsanahay naxariista dadka Soomaaliyeed ee dalku uu leeyahay inay ku fadhiyaan qalbiyada haweenka Soomaaliyeed qarniga 21aad oo adduunyada lagu tartamo aqoon iyo xirfad gaar ahaan dadka ayaan rabaa maanta inaan uga faa'iideysto hal fariin oo ah fariinta soo socota fariintaas iyada waxay tahay ragga Soomaaliyeed inaan fahamno haddii aan rabno inaan adduunyada la tartanno adduunyadana waxa lagu tartamo ay dad yihiin dadka tiradiisa iyo tayadiisuna ay muhiim tahay haddii dawladaha dariska iyo dawladaha horumaray ay nagula tartamayaan wiil iyo gabal walba oo iyagu wax bareen annaguna aan rabno kaliya inaan ku tartanno 50% bulshadeena ah sidee baan dunida isaga celinaynaa macnaheedu waxay tahay lama rabo inaan niraado gabdhahan xuquuq siinaynaa kaliya lama noolaan karo lana tartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuq kaliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah inta ay dalka ku leeyihiin
halkan hooyooyin baan leenahay waalid baan leenahay walaalaan leenahay gabdhaha waa ogtihiin waxbarashada dunida maanta wiilashii gabdhaha ku horeeya shaqadina iyaga ku wanaagsan waxaa intaa ka sii daran ammaanadina iyaga ku wanaagsan sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinayaa maadaama aad guusha dhaliseen aad soo dadaasheen dalal badan oo dunida ka midana aad ka horeysaan sida aad xuquuqdiinna ugu dagaalamaysaan waa inaadan joojina halganka dagaalka aad ugu jirtaan inaad xuquuqdiinna heshaan aniga iyo madaxweynuhuna waa idin garab taagannaha boqolkiiba boqol inta aan wali fahmin waxaan rabaa marka inaan ku soo ganaado haweenka Soomaaliyeed waa hilinka horumarkeena waa halbowlaha nolosheena haweenka Soomaaliyeed waa horseedka hirarka rajadeena idinkana waxaan idin leeyahay ha joojina halganka ha joojina hiigsiga ha joojina horumarka hambaliyo